dufadii labaad oo arday ayaa ka qalin jabisay macadka culuumta caafimaadka ee Buuhoodle. ardaydan qalin jabinaysa ayaa munaasabad meeqaamkeedu sareeyo lagu qabtay howlka shirarka iyo xafladaha ee Hotel Race ku yaala Buuhoodle. waxaa lagu casuumay waalidiin, mas'uuliyiin ka socotay jaamacadda Bariga Afrika, dugsiyada sare, cuqaal iyo waxgarad dadweyne kale. waxaa ugu horeyntii halkan ka hadlay Dr. Cabdisalaan Maxamuud Barkhadle, agaasimaha macadka culuumta caafimaadka Buuhoodle. waxaa macallimiinta macadka dhigtay halkan iyana ka hadlay waalidiin, cuqaal iyo waxgarad kale. culuumta caafimaadka ee Buuhoodle Institute of Health Science inaan idinka siiyo xilligii laga furay magaalada Buuhoodle. magaalada Buuhoodle waxaa laga furay 2013 bishii 6. halkaa waxaanu ka qaadanay dacfadii u horeysay oo aanu ku bilownay arday neersina. waxa sababta aanu maxadka Buuhoodle uga furnay waxaan markii aanu ogaanay magaalada Buuhoodle inaanu ka jirin iskuul caafimaad oo soo saara shaqaalaha caafimaadka oo ay Buuhoodlena ay tahay ama gobolka Cayn uu ku fadhiyo deegaan aad u ballaaran, dadkiisa iyo shacabkiisuna ay badan yihiin, dhibaatooyin fara badan oo xagga amniga iyo xagga xanuunada ay qabaan. waxaa noo soo baxday aniga iyo dhakhaatiir kale iyo dad kale oo caafimaada iyo dad qurba joog ah in loo baahan yahay dad lagu tababaro Buuhoodle oo dadkooda wax u qabta. daraadeed ayaanu maxadkan aanu ku bilownay kuliyadii u horeysay oo nursing ah. waxaanu qaadanay 30 arday ayaanu ku bilownay. waxaa ka qalin jabiyay 9 arday ayaa ka soo baxay. 9 ka arday maanta Buuhoodle ayay badankoodu ka shaqeeyaan. waxay ka shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka sida MCH-da, cusbitaalada, hay'adaha qaar waa macallimiin, waa la wada garanayaa, magaaladay joogaan, naftoodiina way anficeen, dadkana way u shaqeeyaan runtii. waxaa halkaa ka soo baxday inaynu ka raysanay baahi qof shaqaale caafimaad oo neersina ama midwife ama maxaan sheegay baarista ah oo meel kale inooga yimaada. waxa aynu meel kale u doonan karnaa waa dhakhtar. insha Allah dhakhaatiirtiina jaamacadaha gaar ahaan jaamacadda Bariga Afrika ayaynu ka rajeynaynaa inay furto oo ay dhakhaatiirina ka soo baxaan Buuhoodle. maanta waxaanu qalin jabinta halkan u fadhinaa 2 kuliyadood oo kala ah kuliyadda midwife ama umulisooyinka oo ka kooban 7 arday iyo kuliyadda nursingka oo iyaduna ka kooban 7 arday. waxaa ka qalin jabiyay labada kuliyadood marka la isu geeyo 14 arday. halkaa waxaad ka aragtaan in tirada markii hore aanu soo saarnay inay aad u yartahay. tirada maanta qalin jabinaysaana inay aad u yartahay. sababta haddaynu isweydiino waxa weeyaan la dardaarmayaa inay naftooda Ilaahay iyo diinta Islaamka iyo xariga Islaamka ay ku xidhaan. wixii aanu ka balanay 3 sano aanu wax ugu dhigayna waxay ahayd non profit. inaan wax faa'iido macallimiinta wax u dhigaysay iyo iskuulkuba aanu ka helahay. sidaa daraadeed inay ku gorgortamaan dhaqaale iyo inay cid macnaha wax kaga raadiyaan uma tababarna. waxaan ku dhiirinayaa wixii aad barateen dadkiina si wanaagsan oo hor Ilaahay ugu shaqeeya. waxa kale aad u baahantiina waad helaysaa. waxaan ku dhiirinayaa wixii aad barateen dadkiina si wanaagsan oo hor Ilaahay ugu shaqeeya. waxa kale aad u baahantiina waad helaysaa. waxaan xusi lahaa waxaa la yiri haddii lagu sheegana waa la sheelaabay, haddii lagu sheegi waayena waa la sheegaa. waxaa jirtay arday aan ka qalin jabisay halkan Buuhoodle oo dacfadii ugu horeysay oo maanta inagala joogo. waxaan filayaa Guuleed Farole, Guuleed Xasan Kaabse oo ay ka mid ahaayeen arday badan oo kale oo maanta ka shaqeeya Buuhoodle. Maxamed Akfadhi baa ka mid ahaa, Cabdiqafaar baa ka mid ahaa, qaar waa macallimiin, qaar hay'adaha u shaqeeyaan. 2 sano ayaan Buuhoodle waxbarashada maxadka aan uga bilownay. 2 sano markaan halkaa ugu dhamaynay sanad waxbarasho oo bilaasha oo laascaanood baan u diray. sanadkii bay laascaanood ku soo dhamaysteen.
maanta bulshadoodii hadday MCH tahay iyo hadday meel walba tahayba waa lagu nastay waa u shaqeeyey digriigii ugu horreeyey ee neersina ee ka qalin jibiya jaamacadda bariga afrikana way noqdeen iyagana waxa weeyaan inaan maanta halkaa ka xusno maxadkani inuu maxadkii nooca ahaa ee taariikhdaas soo sameeyey inuu yahay waxaa iska jira maxaddo kale oo fara badan runtii annagu maxadka caafimaadka Buuhoodle waxaanu jecelahay in wax la mideeyo oo tayada si haddii wax la mideeyo tayada waxbarashaduna way noo hagaagaysaa annagu ma lihin maadaama hayna maxad bulsho ay leedahay waxa iyaga inaanu iska nictoorsano oo saanu doonno aanu yeelo ma rabno waxaanu doonaynaa in dadku ay isu yimaadaan oo ay sameeyaan cooperation iyo wada shaqayn soo barateen qof walba dee akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo magaranaysaa iyay ka muuqanaysaa markuu tago dee ama bulshada u adeegaya ama goobaha caafimaadka uu tago marka taa waxaan leenahay bulshadu inagu qabiilkeenu waa caafimaad waan isla garanaynaa hal cadow baynu leenahay oo dee waa wixii bulshada dhibaya cudurka weeyaan saaxiibkeenuna maxay wey waa bukaanka dadka bukaanka ee vulnerable-ka ee u baahan in la caawiyo weeyaan marka in aynu taa ka wahayno oo benefit aynan ka raadin waxaa la yidhi ragga runta kuma niciso deegaankeenna hadda haddii la arko goobaha caafimaadka ee khaasatan privatiska waxaad arkaysaan xataa howlseelirada magaaladan ku yaalla haddaad gashaan dawooyinkii baa yaalla oo sida serviceka caadi ama adeega caadiga dawooyinkii baa yaalla haddaad gashaan waad leegi karaysaa dawaduna uma baahna ma aha dee badeecooyin iyo wax nocaasa maaha waxay u baahan tahay in la ilaaliyo meel magaranaysa hawada lebay u baahan tahay meel magaranaysa qaboojiyaal lebay u baahan tahay oo u baahan tahay ilaa xad laga taxadiro marka haddii halkaa taabo meeshii kululayd dee temperaturekeedii waxeediiba wuxuu waa kimiko waxaa ku dhacaya ilay weeyaan daw waxaad iska arkaysaa marka qofkii hadduu dawadaas iyadoo bilaatayaa u cuno dee waa kimiko waxbay yeelaysaa xaqiiq wey taas inay wax yeelayso والله شكي marka soo kale waxaad arkaysaa dad aan la baadhin oo intuu iska tago isagu dhakhtarka oranaya dawadaasi garan maayo waxaan war maxay taraysaa maxay ku yeelaysaa qof aan la baadhin in ay ka taxadiraan inay dawo iska siiyaan ama ciyaalka yar markuu xanuunsadaan looga yaacayo war midda la iska ilaaliyo hadii kale dawana wax kaaga tarmayso dhaqaale kuu baaqan maayo oo inta wada ordaysa qofkiina kuma caafimaad qabo muruga wada baa ku dilay lagu qiimeeyo macal absalaam ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo waxa weeye dadaal badan buu leeyahay qof kasta waxa weeye deegaanka xubin buu ka yahay marka walaalayaal idinkuna waxa la rabaa iskoolkana marka aad ka baxdaan inaad oo waxa weeye inta daartay kulay hadda gabdhaha u badan yihiin waxa weeye kulay wiilashu inta dhexda dhuuqsadaan bay yiraahdaan waxaan ahay afka cirka u taagan waxaan ay degree baan ahay diploma baan ahay caafimaad baan oo kiyaala baalkiyo mudooyuusan haddana dhacayno markasta kor loo hayo marka waxa weeye barada caafimaadku waxay dheertay culumta kale faataha marka faataha bakhda la yareeyo waxbarashada la sii wado gabdhahana waxaan leeyahay hal mid baan lahaa waxa weeye meel kastoo ay tahay marka walaalayaal nooc kastoo ay tahay iyo xaalad kastoo ku jirtaan xafladaha noqoto ama qalinjirina noqoto ama qalin qorashaa noqotee alla ka cabsiga la ilaaliyo soo kale waxa weeye mar kastana mas'uuliyad baa ku saaran ilaahay baa ku dhaariyay meel kastoo waxa weeye taagan tahay ilaahay baa u dhaarsan tahay waxyaalo badan baa jira dhibaato farmasiga wuxuu daawooyin ku hayaan dukaamada laakiin daawada farmasiga taala ee antibiyootika ah islaanta ka timi ee xanuunkeeda aan loogeyn iska iibsanaysa sida bariiska iibsanaysa prescription dhakhtarku waa inuu soo qoraa xanuunka ay qabto laakiin inta iska timaado in yiraahdo dawada iga iibi iyadoo ay doorato dawada sax maaha waxa adduunka laga yaqaan maaha xanuun baa markaa qofka dhibaato geysto xumaad yeelin marka bahda caafimaadku daawadan prescription-ka ee dadka ay ka iibinayaan iyadoo aan dhakhtarba soo marin arinta laga taxadiro arinta laga maaragtay laga gudbo oo daawada qofka waxa laga daweynayo iyo xanuunka laga daweynayo waa in la og yahay dhakhtar soo qora arinta kale bahda caafimaadka looga baahan yahay waxa weeye inaad goobta dhakhtarka inaad fadhido ama qofkan inaad daweyso ama gabadhan islaanta inaad ka umuliso waa sax laakiin wax ka wanaagsan baa jira oo maxay tahay ummadan waxay u baahan tahay wacyigelin caafimaad u baahan tahay waxaan leenahay marka koowaad waxaan hambalyo u diraynaa iyo dhiirigelin ardayda qalin jabisay waxaan leenahay ilaahay idinku anfaco waxaan leenahay hambalyo waxaad gaadhay yoolalkiina kamid ah hayaankuna uu dheer yahay laakiin maalinba meel bay joogtaa maanta halkan baad guul ku tihiin berrina waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan cidda yoolka ay lahayd ka midha dhalisa ilahayna idinla garab galo qolo labaad
waa waalidiinta soo barbaarisay dhallinyaradaas oo waxbarashada ku garab taagnayd oo runtii qof kasta hadduusan waalid helin ku dhiirigeliya kuwa dhaqaale siiya ee aysan soconayn iyagana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka idinku daro iyo hambalyo shakhsigu marba higsi buu leeyahay wuxuu gooyaa shoog ama wareeg ka mid waxbarashadiisii ardaydaas maanta waxay gaadheen higsi laba qodob bay naga mudan yihiin mid weyne farxadda la wadaagno midna weynaynu u ducayno aynu dhahno ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwo cilmigaas uu naftooda ku anfaco ummadda iyo bulshadana ugu shaqeeya inaad noqotaan inaynu ugu ducayno weeyaan guushaas caafimaadaneed iyo guud ahaanba u taniyadaynaa macadka xirfadlayaasha caafimaadka ee Buuhoodle waxaan u rajaynayaa in insha Allah tacaala dadaalka ay sii laban laabaan oo dadaalkoodu sii bato oo caafimaadku waa shay loo baahan yahay oo muhiim ah oo diinteenu taabato ka hadashay bal culimada muslimiintu ay kitaabka alifeen oo kitaabka qoreen dibbiga iyo caafimaadka asaas daraadeed in ardaygu aqoontiisa uu kobciyo waliya waxyaabahan u dardaarmeerday waxa kamid ah in ardaygu takhasuska uu ku takhasusay adduunku inta uu kobcaya oo tadawur iyo horumar buu gaaraya inuu takhasuskiisa aqoon u lahaado oo uu kitaabta laga alifay sharaaca iyo maadiba inuu indhaindheeyo oo la socdo maxaa ku soo koray maanta caafimaadka iyo caalamka iyo adduunka taas waa muhiim iskuulka cabdisalaan institutekiisa waa iskuulkii ugu horreeyay laga furay halkan isagana juhdiga iyo cilmiga faraha badan uu geliyey isna waxaan leeyahay hambaliyo maanta guul weyn baad gaadhay oo kugu hambalyeynaya waxaa farxad ii ah inaan ka soo qayb galo xalfadan qiimaha iyo qaayaha badan leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo la qaybsado walaaladayda qalin jabinaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dawada wadanka la soo geliyay ee dadka aad ku mudaysaan ama kula isticmaalaysaan in aad kala dagaalantaan wixii expire iyo wixii aan qofka anfacayn sababta ay tahay waxa weeye wadankan waxaa lagu arkay dawada iibi cilmina aan loo lahayn ama lacag ka raadi taa waa inaad ka hortagtaan oo ka dadaashaan qof inaga mid ah ama ummadda Soomaaliyeed ama gobolkeena inaan dawo expire ama aan u qalmin in lagu mudo ama lagu isticmaalo ka dadaal arinta waana ku rajooynaa arinta inaad ka hortagi doontaan taasi waa taas talabaad waxa la ninkii cilmi ee bahay baray iyo nin caamiil isku caynba iyo qof kuliyad ka soo baxay ama jaamacad ka soo baxay ama sheekha sida culimadeena iyo qof aan waxba aqoon de wax isku baaba ma aha sana waxbarashada hore wadataan waxaan doonayaa inaan si gaar ah u salaamo dhammaan maartay hawlwadeennada maxadka ugu horeeya maamulaha Cabdisalaam aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxay istaageen garabka yaga waxay naga caawiyeen waxyaabo badan waxa maaragtay ardada ay maaragtay gacanta ugu hayeen maaragtay ay u sameeyeen dhiirigelin iyo shaqo abuur iyo inay qofka ardaygii uu waalidkii ka furto hawl badan oo uu iska bixiyo waxbarashadiisii oo maaragtay shaqo abuur iyo maaragtay dhaqaale uu soo kordhiyo anagu ee dhigata imka maxadka aad baan u faraxsanahay runtii farxadeeda lama soo koobi karo lama raadiyo qarin jabin laakiin waxa la raadiyaa aqoon macallin Cabdisalaan kale dadku waxay moodaan qof kulul markay arkaan indhihiisa laakiin waa macallin aqoon ku dheehan tahay marka bulshada aqoonta raadinaysa waxaan ku dhiirigelinayaa dad xirfad rabtaan inaad iska soo diiwaan gelisaan gudbay oo marka la furay maansadayda gogol dhigay maxadka guurtadiisa adiguna gudan waan maareeyihii guud kuusha kii horseedow garabkayga midigow garaadkan ku faanow Dr. Cabdisalaanow gaashaan midaa tahay garaadkan ku faanow Dr. Cabdisalaanow gaashaan biraa tahay oo guusha dhalin kara gurmadkii aqoontow abaalka ma gudi karnee guulaha ilaahay jannadii ku geeyo adduunyada ku gacan qabay dardaarmayaa bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan ardayda halkan qalin jabisay sidii waalidiintii iyo dadkii mudnaa ee halkan isu soo taagayba ay ugu baraarujiyeen uguna mahad celiyeen waxaan kula dardaarmayaa balqolada caafimaadku waxaan isleeyahay labada baahiyood aan isleeyahay
maanta way mudan yihiin inay culayska saaraan ay ugu mudan yihiin iyadoo baahida sidii jaamac uu sheegay dhammaanteedba ay u taallo waxaan is leeyahay labada baahiyood ee maanta ugu daran waxaa weeye magaaladeenna runtii waa magaalo aan dadaal badan lagu bixin oo bulshada degan oo aan dadaal badan ku baraarugsanayn aan ka wada qayb qaadanno magaaladeenna bilicdeeda iyo farayo dhowrkeeda iyo caafimaadkeeda. waxaan kaloo ugu sii darayaa inaysan is-odhamaad qalin jabiseen ay qalin bedesheen runtiina la doonayo inay intaa ka sii badiyaan qalinkooda aqooneed oo aan anigu ka mid ahay. runtiina deegaankeenna way ku yar tahay shahaadada loo yaqaano masterka iyo PhD-ga aanu ku dadaalno inaynan digrii ku joojin ilaa aynu intaynu master iyo PhD ka gaarayno, taasoo naga caawinaysaa in nabadgelyada iyo horumarka iyo caafimaadka deegaanka uu kor u qaadno. taas waxaan leeyahay ardayda qalin jabinaysa marka aan macadka u imaado, runtii taariikhda macadka iyo maamulaha taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa horeynu usoo dhagaysanay, waanu ku wada qanacnay in aynu intaa la garab istaagno inta hadhay oo aynu ardaydii ka qalin jabishay meesha ay gaadheen waynu aragnay, aynu garab istaagno iyaga iyo macdada kaleba. runtii